salaadiinta caqaasha iyo sidoo kale waxgaradka beelweynta warsangeli ayaa si weyn ugu diyaarsan inay ka qayb qaataan tilaabo walba oo lagu difaacayo magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. inta badan saraakiishii beelweynta warsangeli ayaana isugu tagay deegaanka Cawsane iyagoo daneynaya in gobolka Sanaag iyo dadkiisuba ay aayahooda ka tashadaan isla markaana ay ka gudbaan fikirka u muuqda inuu yahay midka mugdiga ku sii dhacaya ee la xiriira siyaasadda muufaysiga iyo maalin aadba Hargeysa iyo Garowe in uu siyaasigu tago. saraakiishan iyo sidoo kale waxgaradka oo dhammaantood isku raacay shirki Albuux in lama huraan ay tahay in la difaaco magaalada Ceerigaabo. cuqaasha beelweynta warsangeli oo hogaaminayo caaqil Faarax Muuse Gabayre ayaa waxa ay tageen furimaha hore ee dagaalka iyaga oo tuutahooda gashtay. saraakiisha kala duwan ee beelweynta warsangeli oo isugu jira qaar markii horeba ka soo dagaalamay aagga Ceerigaabo, kuwa ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad oo hadda hubkoodii la soo baxay, iyo saraakiil deegaanka ku sugnayd ayaa dhammaantood waxa ay markan isku dhaarsadeen in la joogo waqtigii la midayn lahaa bulshada reer Sanaag isla markaana ay aayahooda ka tashan lahaayeen iyaga oo isha ku haya shirarka odayaasha salaadiinta iyo cuqaashu ay wadaan. Puntland walow ay diidan tahay qorshaha difaaca magaalada Ceerigaabo, haddana saraakiisha beelweynta warsangeli ee gobolka Sanaag ee Maakhir iyo sidoo kale saraakiisha SSC Khaatumo ayaa u muuqda in ay isla jaan qaadeen isla markaana ay isku fahansan yihiin qorshaha difaaca adag ee magaalada Ceerigaabo, taas oo muujinaysa in gobolada Sool, Sanaag, Highland iyo sidoo kale Caynba ay noqonayaan kuwa olog iyo isku mid ah danahoodana iyo aayahoodana ka tashanaya.